waxaa maalintii shanaad xidhan wadooyinka isku xidha habaas cabdiqaadir ilaa iyo lowyacaddo dhinaceeda u gudubta boorama halkaas aada ayaa gebi ahaanba xidhan maalintii shanaad. shacabka deegaankaasi ayaana gebi ahaanba xidhay oo joojiyey isku socodka iyo gudubidda gaadiidka ee deegaanadaasi. deegaanada waxaa degan shacabka beesha ciise degan. ciisana meel adag bay xaaladdu ka maraysaa kadib markii xukuumadda somalilan ay ka hor istaagtay qabashada sanad guurada xeerka ciise oo deegaano badan hore loogu soo qabtay. cabdiraxmaan ciro iyo guurtida beesha ciisena ay horey uga wada hadleen, islamarkaana cabdiraxmaan ciro uu u ogolaaday in ay qabsadaan, oo weliba xilligii la asaasay oo ku beegan 5 bisha soo socota ay ku dhawaaqdaan oo xilligaas ay ku qabsadaan magaalada Seylac. xaaladdu meel xun ayay maraysaa, huburuursi ayaa socda. ciisana dal iyo dibadba waxay go'aan ku qaateen in 18 beriye ka dhiman qabashada xeerka ciise sida uu horey ugu dhawaaqay waaska beesha ciise 5 bisha soo socota uu horey ugu baaqay in aysan daba marin oo dal iyo dibadba la iskaga imaado. xaalad adag ayaa jirta, waa dul istaagi doonaa, balse intaan dul istaagin xogii ugu dambeeyay iyo halka hadda ay wax marayaan iyo weliba go'aano hoose oo dhanka xukuumadda aynu ka soo xiganay mowqifkii hore ee wasiirka arrimaha gudaha uu ku dhawaaqay iyo mowqifkii ka horeeyay cabdiraxmaan ciro oo isdaba marsan. marka intaan dul istaagin bal waxaan rabaa horta inaan idinla wadaago clip yar oo uu duubay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Somaliland oo ku dhawaaqay in xoolihiina ay dhamaanayaan, dadkiina ay gaajo u dhamaanayaan. waxa gaajoonaya xoolaha waxa ka daran maanta dadkii oo haraad iyo raashin la'aan qalka u saarayna u dhintaan. war inta ay gurigeena wax yaalaan ilmo yar iyo hooyo ay u dhimanayaan, war ilaahay wayna arkayaaye. ummadda Somaliland meel kasta ay joogto waxaan maanta u sheegaynaa in abaartii adkaatay galbeedka ay sida ka sheekeeyeen Sheekh Saciid. dhinaca kaleeto in ka badan 42 qof oo xujay ah ayaa ku geeriyooday shil bas oo masaaka ka dhacay inta u dhaxaysa magaalooyinka Maka iyo Madiina kadib markii baskaasi uu ku dhacay gaadhi shidaal waday amaba tank ama gawaarida shidaalka markaasi qaada oo ay labada baskii iyo gaadhigu ay isku dhaceen. haddaba shilkaasi iyo sida uu dhacay iyo dadkaasi oo ka soo jeeda intooda badan hal magaalo ayaan iyadana soo qaadan doona hadduu allaymo. soo dhawaada idinkuna aragtidina igula wadaaga qaybta commentiga. aan ku bilaabay waxaa maalintii shanaad xidhan wadada xidhiidhisa Cabaas amaanahe raalli hada habaas iyo sidoo kaleeto cabdiqaadir ilaa iyo wadada u gudubta weeye lowyacaddo boorama dhulka u gudubta weeye. wadada gabi ahaanba way xidhan tahay. waxaa dhanka kale xidhan dhammaan xuduudda dhinaca Somaliland iyo Djibouti ay wadaagaan iyadana way xidhan tahay. ciidamadii ugu badnaa ayayna xukuumadda cabdiraxmaan ciro waa Somaliland ay halkaasi dhigtay oo halkaasi ay geysay. dhowrkii maalin ugu dambeeyay ciidamo ayaa halkaasi lagu sii daadgureynayay. dhaqaaqyo ayaa halkaasi ka socda. shacab cadhaysan ayaa wadooyinka hadda xidhay, balse waxaa la saadaalinayaa in ay isku bedeli karto dagaal oo ay xaggaasi ka soo geli karaan maleeshiyo sida ay qabaan xukuumadda cabdiraxmaan ciro. waxa ciidamada loo geeyay ma aha shacabka dibadbaxaya inta badan ee waxa weeye cabsi laga qabo in ciidan uu xaggaasi ka soo geli karo. waayii ugu dambeeyayba xukuumadda Somaliland tan iyo Muuse Bixi sanadihiisii ugu dambeeyayba waxaa aad iyo aad loo hadalhayay in ciidamo dowladda federaalku ay ugu talagashay inay ku qabato gobolka Awdal in ay lagu tababaray Djibouti oo ay iska kaashanayaan Ismaaciil Cumar Geelle iyo Xasan Sheekh Maxamuud. ciidankaana la doonayo marka inay waxa weeye laga soo geliyo dhanka xuduudda Djibouti. waa sida ay qabaan siyaasiyiinta Somaliland. ciidamada halka la geeyo waxaa la sheegay in looga gol leeyahay in ay suurtagal tahay in ciidan xaggaasi ay ka soo galaan, sida awgeedna in awoodda la saaro ciidamo badan halkaasi la geeyo oo isha lagu hayo. waana sababta xukuumadda cabdiraxmaan ciro ay ciidanka halkaasi u geysay. dadka shacabka wadooyinka ayay xidheen. waxay sheegeen in aysan wax isku socda oo dhex mari kara iyaga iyo beelaha ay sayaan ama dhinaca Somaliland dhinaceeda u gudbi kara uusan jirin. wadooyinku waa xidhan yihiin, gaadiidku waa xidhan yahay, walow wadooyinka inta badan xidhan marka horeba ay mari jireen oo kaliya gawaarida Hiluxka markaasi amaba gawaarida markaasi Toyotada ka bixi kara wadooyinka rafka ay mari jireen. isku socodka magaalooyinka lowyacaddo ilaa iyo habaas dhinacan cabdiqaadir boorama dhammaanteed way xidhan tahay sida dadka deegaanku ay noo xaqiijiyeen. muuqaallo baraha bulshada lagu baahiyeyna
ay markaasi caddaynayaan. beesha ciise ayaa wadooyinkaasi xidhatay. dabcan horeyna waa idin kula wadaagay go-aanka ciise uu isku raacay waxaa weeye 18 beri baa ka dhiman mise 17 beri ayaa ka dhiman 5 bisha ee ay qabsadeen. 17 beri ama 18 beri ee ka dhiman dal iyo dibadba way iskugu baaqeen in la imaado oo Somaliland la soo galo, si weliba toos loo imaado magaalada Saylac. beesha isla degan yihiin ee Samaroona waxay sheegeen in wax xeer ciise la yiraahdo Saylac lagu qabanayo inuusan jirin, dhimashana ay ka xigaan. weliba isimada dhaqanka ee Samaroon qaarkood odayaasha dhaqanka dhehe wayba dhaarteenba, waxay dhaheen haddii xeer ciise Saylac lagu qabto ama waan ku dhiman waan ku shahiidi ama waan ka haajiri dhulka waan ka guuri, wax ka dhaxeeya iyadu ma jiro. odayaasha ciisena waxay dhaheen haddii Saylac lagu qaban waayo ama waan dhammaanaynaa ama Somaliland oo dhan baan ka guuraynaa. iyadana halkaas ayaa la kala taagan yahay. xukuumadda Cabdiraxmaan Ciro madaxweynuhu horey waa ogolaaday, golihii wasiirada maalin dhaweyd aadayna bayaankay soo saareen wuxuu ahaa in aan lagu qaban karin xeer ciise magaalada Saylac. markii lala tashaday, markii sidii lala tashaday, markii la tashaday, markii odayaasha la tashaday, markii xagga la tashaday, waxaa noo soo baxday si loo xaqiijiyo amniga inaan xeer ciise lagu qabanin magaalada Saylac. arrimaha la isweydiin baa waxay tahay war xeer ciise amni darrada uu wato maxay tahay? xaflad beel ay qabsanayso oo aan dagaal looga hadlaynin, oo aan madax banaani looga hadlaynin, oo aan beel kale ku duula la dhahaynin, oo xaflad dhaqameed ah amni darrada ay wadato waxa weeye laga baqayo maxay tahay? maxayse tahay sababta Cabdiraxmaan Ciro uu horey u ogolaaday wasiirkuna uu leeyahay amni darray keenaysa? Cabdiraxmaan Ciro isagu amni waxa weeye amni darrada ma arkaynin miya? wasiirku ma dalka ma wasiir baa xukuma mise madaxweyne ayaa xukuma? waa arrimaha dad badani ay isweydiinayaan, waa su-aalaha soo noqonaya. si kastoo noqotoba waan dhiganaynaa iyo ma dhigan kartaan baa hadda la kala taagan yahay. dhinacyo kala duwan baana diidan oo ma aha oo keliya beesha Samaroone, beelaha Isaaq naftirkooda arrintaasi weyn bay uga soo horjeedaan qaarkood oo waxay leeyihiin maya, anagu maba naqaana ciise wax la yidhaahdo, anagu Samaroon ayaan garanaynaa. weliba boqor buur madoobe ayaa arrintaa ku dhawaaqo si gaar ah isagoo weliba waraysis iyo warbaahinta sheegay in ay xabad sanka ka gelinayaan oo weliba ay ku dhimanayaan haddii ay isku dayaan ciise inay xafladaasi ay qabsadaan. waynu eegi doonaa xaaladdu meel adag ayay maraysaaye. dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka maamulka Somaliland oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in xooluhu ay gaajo u dhammaanayaan, dadkiina uu kasii daran yahay oo gaajo iyagana ay u dhammaanayaan. xaalad adag oo abaareed ayaa Somaliland ka jira sida ay isla xaqiijiyeen madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kaleeto qaar ka mid ah culimada Somaliland, kuwooda weliba markaasi xukuumadda sida gaarka ula shaqeeya. abaartu geyga Soomaaliyeed oo dhan baa ka jirta. inta badan abaaro ayaa laga cabanayaa oo waxaad moodaa dayrtan waxaan hadda da'aysa waa dayr baa la yidhaahdaaye in ay seegtay oo ay u muuqato abaaro weliba baaxad badan ama baaxad weyn in geyga Soomaaliyeed meel walbay degaanba ay ka jirto. ilaahay dadka soo qaboojiyo. baaqaasi ay direen madaxweyne ku-xigeenka iyo culimadu waxay ugu baaqeen in dadka qurbaha jira iyo dadka u haystaba ay iska kaashadaan sidii dadka loo garab istaagi lahaa, biyo loo gaarsiin lahaa, baat loo gaarsiin lahaa, loogu diyaar garoobi lahaa. dadka xoolahoodu ay abaartu ku dhacday sidii waxa weeye loo garab istaagi lahaa. waana geyga Soomaaliyeed oo dhan ma aha Somaliland oo kaliya. baaqaasi waxaan filayaa in ummadda Soomaaliyeed uu wada gaari doono oo adiga haddaad dibadda joogto ama xooga adaysato inaad ka warqabto bal dadkii baadiyaha jiray inaad ka warqabto ayaa loo baahan yahay. dhinaca kaleeto 42 qof ayaa saaka subaxnimadii ku geeriyootay shil baabuur oo ka dhacay inta u dhaxaysa magaalooyinka Maka iyo Madiina. 42 qof oo weliba caruur iyo haween u badan sida warbixinada lagu sheegay waxay ahaayeen xujay markaasi cumreysanaysay. waxay ka soo bixeen Maka waxayna ku jeedeen Madiina. 42 qofba way geeriyoodeen. qaar kale oo dhaawac halisana iyadana waa jiraan sida ay sheegtay safaaradda. warbixin ay soo saartay safaaradda Hindiya ay ku leedahay Sacuudiga. dadkan waxay u badnaayeen sida la sheegay Hindiya ayay u badnaayeen oo ay ka soo jeedeen. ilaahay jannatul firdaws ha geeyo intii dhimatay, inta dhaawacantayna allaha u boogadhayo. dad waxay ahaayeen gudanaya acmaasha